نبي محمد عليه الصلاة والسلام وقفك كلية بني آدم الله هيو تاريخ مولولات كيسيور دان وحو قبطي ما هذا قال لدي وقالي وقرية انتا وحالله هيا وحو عني راشمدو عني انتا نوعي هاي وحو عبي وحو كسيحدي وحو مره ودي وحو نرقشدي كبهيسو نوعي هايين كبتي سالة قرانيا تاكو iyo laba farood bay ahayd kabta nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam dheerkeed ciribteedu 7 farood bay ahayd halkan dhexe 5 farood bay ahayd afka hore way u fiiqnayd in dal bay lahayd fartu gasho dhexe qabalayn isdhaafsan yani kabta nabi maxamed ba maanta la sifeyn kara ama la tilmaami kara noocay ahayd waxa la sheegi karaa timo intuu xirtay iyo sidoo u xirtay waxa la sheegi karaa mariyuhu qaatiya midabka ilaahayeen kutub shamaa'il ma waxa kale ka warrama mariyuhu sitay mid cagaaran buu xidhay mid casbu xidhay mid noocaas u xidhay inta midaba uu nabi maxamed xidhay alayhi salaatu wasalaam noloshiisa musqusha qofka bini aadamka ma cid ba ka warranta nabi maxamed waxa la garanayaa musqusha markuu galo wuxuu qaban jiray siduu u fadhiisan jiray gacantu iskaga meeyri jiray meeshuu ka bilaabi jiray markuu maydhanayo halkuu biyaha ku bilaabi jiray soo kuma barataan kitaabu tahaara markaa dhiganaysaan yani qof bini aadam oo xataa musqusha markuu ku jiro wuxuu qabto la garanayo waxa la garanayaa haweenkiisa markuu la joogo biyaha uu ku maydhanayo siduu ugu maydhan jiray halkuu ka bilaabi jiray soo sunanul jinaaba laydinma dhigo siduu nebigu uga maydhan jiray janaabada iyo biyaha dhanku ka bilaabi jiray suuba يعني النبي محمد عليه الصلاة والسلام نولشي سوى حق صاري بمجرته هاكم بالليل وقت نولشي سيه بل وح عيبك صارا ما وح قد ضلالة أما وح عن شيء إنه النبي نولش النبي محمد عليه الصلاة والسلام بالنبي نمت المامس